بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan horteeda waxaan ku sugannahay waa xafiiska safaaradda Somaliland ee dalka Norway. horteeda waxaa soo fadhiya safiir Maxamed Aadan Liran, safiirka dalkan u fadhiya Somaliland oo ay garbihiisa fadhiyaan guddidii qabanqaabada 18 May oo isagu hogaaminayo. safiir ku soo dhawow bal saxaafadda wax ka sheegaya. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعندو هاي آدي بعد محسنتين هل كان مانتا وريرو كوبن وكسابسن قابن ستيدي تبن كمي لبكون يلحي لا تنك أينو هل كان مانتا كوبن هنا وحا آدي فرحت قلنا سا in 18 May sanadku ay ka duwan tahay sanadadii hore. waxa aynu nahay wadan la aqoonsan yahay oo caalamka ka mid ah, sidaa darteed 18 May wuxuu noqonayaa sanadka kan uu ka wanaagsanaanayaa kuwii hore, sababtoo ah mowqifka ay maanta Somaliland gaadhay ayaa heer caalami ah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 18 May 2026 aanu halkan doonayno inaan ku qabano magaalada Oslo. markaa waxaan dadka la ogeysiinayaa Oslo iyo nawaaxigeeda ama Norway oo idil ka iman kara in la qabanayo 16 May 2026 lagu qaban doono magaalada Oslo maalintii dabaaldegii. waxaa adreskiisa iyo ciwaankiisu na ay yihiin Maribas Gata 6 til T, ama marka aad eegto ciwaankaasi Melahus Oslo wuxuu ka soo horjeedaa Rockefeller ayaa halkaasa lagu qabanayaa. waa meel aad iyo aad u qurux badan. waxa ay noqonaysaa saacaddu 17 ilaa 1 habeenimo ayaynu haysanaa inaynu dabaal degno. sidaasaad isgaarsiin doontaan oo ay isku wada diri doontaan idinkoo social media isticmaalaya in aad faafisaan baa loo baahan yahay. guddida qabanqaabada oo halkan iyaguna ila fadhiya qaarkood qaarnoodna ay maqan yihiin, hase ahaatee aanu ka wada hadalnay inay guddida inay noqdaan dadka lagala soo xidhiidhayo. waxaa ka mid ah Cabdiraxiim Sheekh Daawud oo xogeeyaha xafiiska ah, waxaa ka mid ah Cali Saleebaan, waxaa ka mid ah Siciid Amiin, waxaa ka mid ah Cabdifataax Sheekh Xasan Muumin. waa dhammaantood telefoonadoodu waxaa lagu soo qori doonaa nadka oo aad kala xidhiidhi kartaa haddaad wax u baahato. sanadka kan wuxuu kaga duwan yahay sanadadii hore. aqoonsiga leena aqoonsan yahay iyo markii ugu horreysay in dhalinyar da'yara oo dadkii halkan ku koray ii yimaadeen oo ay weydiisteen inay sanadka iyagu hogaamiyaan 18 May, annaguna aanu ka ogolaanay inay iyagu sanadka kan halbowlo ka noqdaan oo ay hogaamiyaan. waa tallaabo hore loo qaaday oo aan hore uga dhici jirin magaalada Oslo. waxaan leeyahay sidaa iyo dabaaldeg wanaagsan. aad iyo aad baad safiir u mahadsan tahay. sida uu cayimay ama uu sheegay se goobtani waxay u dhowdahay Gunarius santarka magaalada ayay ku taallaa, waxaanay bilaabmaysaa siduu inoo sheegay waa 5 galabnimo ilaa iyo 1 habeenimo. barnaamijka oo ku beegan 16 maalinta Sabtida 2026 waa May 16 haddii Allah wadi ogolaado. aad iyo aad baad mahadsantihiin safiir. waxaan ku leenahay gratulare mabruuq عليك.